ilhaan cumar oo ka soo jeeda jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Mareykanka ayaa ku guuleystay doorasho ay xisbigeeda dhexdiisa ka gashay taas oo loogu tartamayay matalaadda kursiga xildhibaanada aqalka wakiilada ee degmo ka mid ah gobolka Minnesota. waxay loolan adag kula jirtay siyaasiga lagu magacaabo Anthony Melton iyo saddex musharax oo kale kuwaas oo dhammaantood u hanqaltaagayay in iyada ay meesha ka saaraan. dhowrkii maalmood ee ugu dambeeyay ayay ilhaan la kulmaysay cadaadis xooggan iyo dhaleecayn intooda badan looga soo jeedinaya baraha bulshada. laakiin taageerayaasha xisbiga ayaa mar kale ilhaan u xushay inay sii difaacato kursigeeda degmada shanaad ee Minnesota marka la gaaro doorashada Mareykanka ee ka dhacaysa bisha November. tirada codadka ay heshay ilhaan ayaa ah 57.4 halka musharaxii kale ee isaguna u soo dhawaa uu helay 39.2. ilhaan ayaa guusheeda kadib waxa ay boggooda Twitterka ku soo qortay gudaha Minnesota markasta waxaan ognahay in dadka is abaabulay ay ka adkaanayaan lacagta la abaabulay caawana dhaqdhaqaaqeenu guul kaliya ma uusan soo hoynin waxaanu kasbanay maamul isbedel keenay iyadoo ay jiraan dadaallo dad gobolka ka baxsan ay ugu jiraan in guuldarro ay nagu dhacdo. mar kale ayaan taariikhda dhignay iyadoo ay jiraan weerar nagu socda isla markaasna ay taageerayaashu sii kordhayaan. Anthony Melton oo ah musharaxa kale ee isagu sida ugu weyn ugu xusul duubanayay in uu kursiga ka saaro haweenadan ilhaan cumar ayaa lagu soo saaray sida la sheegay ama lagu soo gaarsiiyay codadkaasi 39 ka ah lacag tiro badan oo uu isticmaalay. lacagta badan ee uu olliisa urursanayay ayaa waxa ay keentay xataa inuu iibsado xaysiinaha warbaahinaha gudaha dalkaasi Mareykanka taas oo cabsi badan ku abuurtay Soomaalida Mareykanka ee ku dhaqan gudaha dalkaasi Mareykanka. balse taas ayaa wax badan ka bedelay guushii ilhaan waxaana Soomaali badan ay rajo wanaagsan ka muujiyeen in guulo kale oo waaweyn ay soo hayn doonto ilhaan cumar. 4 sano ee la soo dhaafay waxa ilhaan si weyn uga dhex muuqatay siyaasadda Mareykanka iyadoo codadkeeda ku muujinaysay sida ay uga soo horjeedo siyaasadda maamulka madaxweyne Trump. waxay noqotay gabadhii ugu horeysay ee Soomaaliya ka soo jeeda ee heerkaasi gaadha sidoo kalena waxay ka mid tahay haweenka muslimka ah ee markii ugu horeysay ku biiray Koongareeska Mareykanka. ilhaan oo kursigeeda difaacanaysa ayaa ku guuleystay codad ka badan kuwa ay u baahneed in ay ku soo baxdo. sidaas waxay ku noqonaysaa musharaxa xisbiga dimuqraadiga ee doorashada uga qayb gali doona bisha November. waxay doorashadaasi ku wajihi doontaa musharax ka soo jeeda dhinaca xisbiga jamhuuriga. xisbiga dimuqraadiga ayaana wax walwal ah ka qabin natiijada doorashada November ay ka filayaan ilhaan cumar. Cabdiqani Boos, SBC.